وما تسيهين هداية إيو قبل ما نوهيد طبعا إن القف وضك لكلمة وصومالي يمادو إن شاء الله محرجين إن ستوريس كذا اللي هو ذاك دون تروا عندنا وحيابها similarities كما يكون تمامتين لبضة قيبود كده حين كرا لبضة وطن مقال كهنا قطو طبعا تاريخ ذي وحيد عيا دجالنا سكاي هنا قطو برامجك صوص على واحد وحيد دونا هداية دقنك لو حق السودان وحوك وكنا صندوقنا مركز حوير يا أحمد عنب ونبدأ تدون برامج كحجة ونسوقه بدون سيان إن شاء الله وحجة من الدالة سوقنا كتبنا مالتكم هذا وصحرنا مركز وقت يربع نودي مرة اللي هذا برامج كحجة لك يقول دون عبد الله الشيخ حسن أحمد عبد محمد محمد حسن عرو وأنا قراءة يبوكا ونسوقه بدون كتب موسيقى وحجة هداية دخل كعيارة وصحر دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود مشاكتين. وندرمي كراينا دالنتين. وندرمي كراينا عبار شوكتين. لكن وحن هل كان دينكو وهايا أو دينكو سوق بيندونا. صدح بوك أو قف كستو إن كميدا مت كميدا هدو آخري هدو صدح الآخرية با إنه ليش يسوي بدن كبدل كران كبدل دون. بوجاك تاس أن دين هايو وحالك اللي هذا magacyadooda haddaan idiin sheego mid ka mid a waxaa la yidhaahdaa guurdoon rag iyo gayaan dumar waa buug ka hadlaya nolosha guurka ee dhaqanka soomaalida ku salaysan dabcan wax badan qoraagiisa ayaa nooga sheegi doona buugga kalenta waxaa la yidhaahdaa basic of islamic upgrading isagana wuxuu ku saabsan yahay barbaarinta ubadka iyo diinta islaamka ayuu ku saabsan yahay dhammaantiin waxaad doonaysaa inaad guursataan ama waad guursateen inaad ubad dhashaan aad doonaysaa ama waad dhasheen sida diinta waafaqsan u barbaarin lahaydeen ayuu ku saabsan yahay buugga kale wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhaahdaa magaciisa maskax guriye ama maskax guriye haddii af reexamar aan ku hadlo maskax guriye wuxuu ku saabsan yahay mushkiladda qaadka uu ku hayo dalka iyagu haddii maskax guriya dabcan ereygaas si fiican waxay kugu sharxi doonaa qoraaga buugga aniga magacaygu waa axmed cabdi caynab inta ay sessionkan uu socdaana in daadihin doona halkan marka waxaa uga yeeri doonaa saddexda qoraa oo kale ah axmed cabdi maxamed axmed iyo sheekh cabdullaahi xasan soo dhawaada igula soo biira halkan adigana sacabka oo dhankii أحمد عبدي وحفلة ونقص بيري دونا لكن وقت يوم سامحين درتي وحاربنا إن ضد اللي ظهروا سيقلنا وبرامج كنا قسيب لهم سعونين إن واتهاي إن وما سنتهين كسر هذا إن بوك في مقدشو إن وحرجنا يوحبضن وقت يقول عريرنا يدرت هذينا سؤالك وكمان عندي مدين دونا طبعا سؤالها سحرجنا يقفل باب السياد وكمان إن وكجا جوابه إن وحكوهر مرد دونا إن عبد الله الشيخ حسن أو قري بوكيسا وهم قاعد على basic Islamic upgrading and بوجاس وحربا مركو جوه الرئيسي محاكو جودلي سودو أحمد وما سنت هاي سوكرتي and وحكو جودلي إيه ندي سوكوت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركو هره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدشات بانو فرح سنة هيرونتي هرفدي كمان تادين هرفديو أنا جو أرضية دكتور سكول ده مقالة سكول مقدشو in 1998 بان جامعة كهذه ما أنت لله يقدري
inaan ardadii hor fadhiyo macallimiinta hor fadhiyo runtii aad iyo aad baan u faraxsan mana soo koobi karo waqtigaa ugu yar ma ogiye xitaa maansooyina ka yar curiyaan hortiina ka dhihi lahaa sugaantana aad baan uga helaa allah yabaarik fiikum walaalayaal sugaanta waxaa laga yaaba dadkeena qaar inay si kale u qaata laakiin al-adab al-carabi waa nala bari jiray iskuulla waa laydin baraa qaybteeda wanaagsan oo waxaa u sharaf badan maantadan halkaan loo fadhiyo kursiga akhyaarka rag iyo dumar shiribya qaadayeen yani sirib waa ku biirtid iga raalli how waan dadejinayaa su-aashana usoo noqonayaa waxaan yar idhi diinigaana dhoofshee noo waday dalkeennii cilmi iyo aqoon iyo noo dareershay diintii ilays aan dhammaan iyo noo shiday ilaacaas danwad aan isgaran iyo bahwadaagta qalinkii soo wada casuumee rabbow xooji himadaas annagana indheergarad dammanaan ka dheero naga yeeldantii wade dalkiisii dhisaayo dadkiisii iloobayn idinkuna aamiin dhaha dalkiinnana ku dogsada damiirlaawe dabadhilif iska dhaafa abidkiin su-aasha walaalkay haddaan waqtiga dhamaystir waa ku wareejinaya mikrofoonka buugga waxaa igu kalifay waxaan arkay 2007 wiil yaroo arday ii soo noqday maalinkaas iskuulka aan dhigayay in UK magaalada Birmingham madrasada al-Furqan yaan su-aal waxaan markii leekana waxaan ku yiri adeer islaamiga maxaa ka taqaanaa bal saxaabada qof kamid ah noo sheegay oo 10 bixinay maadaama soo galay aan iri magaciis soo yiri wad saxaaba maxaa dhahaa waliba wiilka dee faamil ilo qurux badan oo khiyaara iyo ka dhashay aad u jeclaa 13 jir buu ahaa Sir Abu Bakar Umar Uthman ma taqaani sida I don't know it I'm sorry runtii waan nahay marka waxay xageed wax ka bilowdaa macallimiinta baan la hadlay waxaan ku rursaan simaha aynu si u dhaanno hawsha aan qabanno aan kitaabo dhigno fikradii waxay socotay ilaahay wuxuu ka soo saaray waqti aad buu yiraahday kitaabka asaasiyaad fi tarbiyada islaamiya oo maanta hooyo u ah 30 kitaab oo caalamka carab iyo ajamba madaaris badan ay ka dhigaan oo ka soo jeeda kitaabkaas idinkuna muqdisho idin la yaala in badan oo idin kamid inay taqaanaan aan filayo biidnillahi ta'ala barakallahu waayahay sheekh Abdullah waa maadsan tahay waxaan rabaa haddii introduction yar aan ku sii daro saddexdaan nin halkan afartanadan waxaan ka soconaa Soomaaliya oo dhan macnaha haddii aan si kale ugu sharaxo kor ninka ugu shisheeya Axmed Cabdi wuxuu ka yimid Hargeysa ama Somaliland ama waqooyi galbeed Soomaaliya habba wixii adiga ay aad jeceshahay oo isticmaal ninka la yiraahdo Maxamed Axmed wuxuu ka yimid Sool Lascanood si kale haddii loo dhaho mar kale wuxuu ka yimid Garissa iyo Nairobi ayuu ka yimid Sheekh Abdullahina wuxuu ka yimid wuxuu ku dhashay Gedo iyo Bakool dhowr meelood macnaha laba jeer muusa dhalan laakiin Bakool uu ku dhashay Gedana uu ku barbaaray Xamar wax ku bartay Yurubna uu ka yimid hadda aadhe iyo Mareykanka marka aniguna waxaan ka yimid Balweyna ku dhashay Xamarna waxaan ku bartay marka dhamaantan Soomaaliya ka nimid oo wada dhan inta kadib waxaan rabaa barnaamijka inaan u sii wado waxaan rabaa inaan siiyo Axmed Cabdi waxaa qortay buug la dhaho maskax guriye ereygaasina ii sharaxdaan rabaa hal daqiiqa haystaan استعميسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين رب اشرح لي ويسر لي أمري إن أنت كذب والله هديان أحمد سواشة تسيك على جوابه سيدا أدوغو عد مقدمات كبير سيوحان قريبوك مسكح قرية الله ينهضو وكور رميا أفو كمدا أفوين كووا وين الصومالي دا هايستا أفوين كقار بارنا عول نجر رجالي نعول بين نجر رجالي سي بقالة عافيمات ضد دويو وحوله هنتي الله إن أفين نجر رجالي سي بوجا سي كقري مسكح مركين لين هاي وين وصلوا هذا كرنا إنه أو لا أشدا كلا دواني الصومالي أنت بدل مسكح اسمه بديش لكن قرية مركل ليه هاي مركح حمرة جوين وحلا جاي بل يفهم كرا قرية هل كان داع كدقة عن كدقة مركح رق مسكح قرية إن قار كان كقري أنا جواه
markaasi qaadka saa aan u sheegay meelo badan buu saameeyaa laakiin markaan saas u eegay qofka bini aadanka halka ugu muhiimsan halka ilaahay karaamada u saaray halka ay dadku ku kala duwan yihiin halka ay dadkii xoolo ku kala duwan yihiin waa maskaxdii marka halka ugu weyn u qaadku asiibo waa maskaxda oo uu markaasi habka u shaqaysa wax ka bedelo aniguna taasaan u qaatay oo magacaygii markaasi ugu dhigay inuu qaadku yahay maskax guriye ama maskax dooriye aad baad u mahadsantahay shukran waad ku mahadsantaha may adigu hayso kaas adaa iskale microfonkaas waxaan kaa rabaa waxaan u imaanayaa maxamed axmed ciro maxamed xasan ciro cafwan magacaaga dhowr jeer qalday maxamed xasan waxaa qortay buug dabcan nolosha soomaalida aad u saameynaya oo aad tiri guurdoon rag iyo gayaan dumar buuggaas bal hal daqiiqo inoo sharax fariinta ku jirta bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahay ayaa horta mahad iskale inagoo nabad qabna isugu keenkeenay meeshan waxaan salaamayaa dhallinyarada quruxda badan ee say saaka u yimaadeen meesha qorshahooduna yahay inay wax ka kororsadaan meeshan waxna la kala kororsado u yimid mar labaad iyo mar saddexaad baan idin salaamayaa runtii qalbigayguna farxad weyn buu dareemayaa su-aashaadii haddaan usoo noqdo buuggan guurdoon rag iyo gayaan dumar waxay horta igu dhaliyey inaan qoro meesha lafteeday ku qoran tahay waxaan marayaa 10 sano ka hor mar laga joogo xaflad yar oo qada ah oo aan isugu nimi ragga meesha fadhiya inta badan waan aqaanay waa ragga miiska ila fadhiya rag dhalinyaro ah bay u badnaayeen ninka ugu weyn 25 jir buu ahaa ninka ugu yar ilaa 19 20 baan ku qiyaasayay shaqo ahaan waxay qabtaan waan aqaanay qadadii iyadoo markaa loo fadhiistay oo la bilaabay ayaa nin hadal kaftana soo riday oo wuxuu yidhi waata halkan laga qadaynaya guryihii yaa looga yimi hadalkii wuu sii yaro socday yaa gurya leh ayaa la isweydiiyey raggii dhallinyarada ahaa ee 7 ahaa aniguna aan ku 8 ahaa ninka ugu yaray inuu 2 goor guursaday buu sheegay ragga qaarkood 7 goor iyo 8 goor inay guursadeen bay sheegeen arrinta kaaga sii dareed waxay ahayd 7 nina meesha fadhiyay nin markaa guri lahaa kuma jirin ma u kaadi bal intaas ma ku ekaan karnaa inta kale buugga ka ogaan doontaan buugka akhrista okay ilaan waxay ku qoran tahay buugga siduu noo sheegay waa kaa dafaa halkaas markay taagan tahay waxaan siin doonaa microfonka cabdulaahi sheekh xasan buuggan aad qortay wuxuu ku qoran yahay dabcan luqadahaas carabiga iyo englishka marka meelaha qaarkooda wax badanaa ku qornaayo oo aan ku arkay waxaa ka mid ahaa xaasidnimada adigoo ka hadlaya marka arrintaas xaasidnimada bal waxay nooga sheeg markii aad buuggaagu qaabkay ugu qoran tahay bismillah xaasidka saa wada ogsoonahay dabcan muslimiin baynuna aad baynu u fahmaynaa dhibka uu leeyahay annaga hadda bahda qalinka ee hadda isla joogno waxaan ogsoonahay in badan hadda waxaa idiin sheegaya buug inuu hooyo u yahay 30 kitaab qaar ka mid a 2 macallin oo kale ay la shargareeyey oo ila qoray oon ku casuumay qaarkood ay iga yimaadeen saaxuusi wada qorno tiim u noqon taas marka qofka qoraaga iyo qofka shaqaysanaya nooc kasta oo ahaadaba xastak waxaa u tilmaamayaa in qalbigaada uu bislaado oo saafi ka noqdo oo qalbi fayow walaalada waxaa laga yaabaa midkeen naga mid inuu arko buuggiisii mid la mid inuu mid kale qorayo maaha inaad eegto inaad ku farxdo wey tukaan baa lagaa gara fur mid kale inaad ku farxdo wey alfa tukaan kaafi raxmaan aad tiraahdo marka xasadka allaha naga hayo waa dhib badan ilaahayna waa ogtiin suuratul falaq buu nagu sheegayba inaan ilaahay ka magan galno xaasidka markuu xasdayo marka qalbigayga iyo kiina waxaan leeyahay sida salafuna saalix dadkii wanaagsanaa ay ahaayeen salaamatu sadr sabiilu salaf qalbiga oo la caafimaadiyo waa wadadii dadka wanaagsanaa ee soo gaarnay saxaabadeennii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam una baray inta wanaagsan ee yaqaan qalbiga ku fiyoobaa qof caafimaad qaba noqonaysa xasad uu ka marnaado haddii aad bugto kan u horeeya uu dilayo waa adiga isla soco suntaadii baad ku wadataa qalbiga aad iyo aad dabcan waxaa ku qoran buuggaas waxyaabo badan oo xaasidnimooyinka siyaabo badan oo u jirto iyo waxyaabaha laga dhaxlo iyo sidoo kale waxyaabaha looga daawoobo intaba buuggii ku dhex jiraan waan filaya inaad ka arki doontaan axmed cabdiyaan rabaa inaan wax yar weydiiyo axmed cabdi
buuggaaga cutubka koowaad waxaa kaga hadashay taariikhda qaadka wax yar inooga sheeg kusoo koob. بسم الله الرحمن الرحيم والواسات شكتون ما سنتهي بوجو ككوبية هي عتبة كلا دوان عتبة ذا سوق الهرية قاد كي أي واحد بدن كابريان أو بركورو أوليجان وما قاد كي تاريخ ذي قاد كان ساو صعنيا مركزي هرت قاد كوا جد مدب كيسو عجاني هي أو كبا حبل كتشوف كيسو صريو إلا شيء لا 20 كيلومتر شيء لا تنبي بودر كيسو قانا مركو وين هي marka joogooda sareeyay biyaha fiican la carradiisuna fiican tahay uu ka baxaa xog badan waxaad keenaysaa buugga haddaanu imaado taariikhda qaadku leeyahay qaadku wuxuu ka soo bilaabaa taariikh aad markaasi u gundheer oo dadka qaar sheegaan ilaa iyo waqtigii walow taariikhaasi aanay sugnayn ilaa waqtigii nebi khadar taariikha ku beegan marka ay ninka khadar la yidhahdee qur-aanka lagu sheegay ninka wanaag qaarna ay ku sheegaan nebiga inuu ahaa waqtigaasay qaar ku sheegaan laakiin markii u horeysay waxa la yiraahdaa qaadka waxa laga helay dalkaynu jaarka nahay Itoobiya waqtigaas oo nin boqor ahaa ciidamadiisa aad loo jabiyay kadib nin taliyaashiisa kamid ah ku yiri geedkan oo laga helo firfircooni fara badan oo qofka aad u shaqeynayo oo cabsidu ka guureyso oo ciidanka dhiirigelin badan u sameynaya ayaynu ciidankaaga markaasi siinaynaa saasi ciidankii ninkaasi boqorka ahaa ee Itoobiya ka taliyay markaasi ciidankiisa ku siiyay ujeedadii uu kala haaro uu gaaray oo markaasi ciidankiisii sidaasi markaasi ay dagaalkiina u galeen waxyaabahaas mirqaankiina ay ka heleen mirqaanka xagga dambe ugu tagi doonaa waxyaabaha keena oo kiimika ahaan bay markaasi wax badan uga baran doonaa laakiin waqtigaas la sheegay taariikh badan baa jira waqtigaasi waa ilaa iyo waqti qarniyo bar aad qarniyo bar laga joogo ay ku dheeraan tahay taariikh fara badan oo kala duwan waa kugu soo laaban doonaa Soomaaliya xiliyadu soo galaa inoo sheegi doonta Maxamed Xasan buuggaaga cutubka koowaad qaybo ka mida waxaad kaga hadashay ama waxaad in badan ka sheekaysay yaad guursan lahayd marka qish yar ma siin kartaa dadka oo ku saabsan ciddii guursan lahaayeen horta su-aashan ah yaad guursan lahayd yani dadkeena howlka fadhiyaba waa mid u taalla waxaan u leenayaa qof kasta oo nool rag iyo dumar waa mid mar uun kusoo dhacaysa maskaxdiisa da' kuma xirna adoo 60 jir aad isweydiin kartaa adoo 20 jir aad isweydiin kartaa yani markaan ku leeyahay yaad guursan lahayd guurka horta milga kale uu leeyahay oo sida loo maleeyo aan ahayn yani wuxuu tijaabo u yahay qofka bini aadamka inta hore ee aad 20 sano ka horeyso waxa tahay gacan qof ku jira hooyo iyo aabe ayaa kule xaggan ka leexo sidan yeel iskuulka aad waxbaro laakiin guurku waa tijaabada kuugu horeysa ee adiga noloshaada ah oo aan cid ku dhahayn sidan yeel marka su-aasha ah yaad guursan lahayd waa mid mugdheer dhinacyo badan baan ka fiirinayay hadday aan lahayd barbaarinta hadday aan lahayd aasaaska qofka guriga uu ka soo jeedo waxaasoo dhan saameyn bay qofka ku leeyihiin marka muhiimad marka waxay tahay su-aashan anigu aan isu weydiinayay waxaa jira waxyaabo bulsho ahaan aad saameyn inoogu leh oo muuqda waxyaabahaasi waxaan kow iyo laba ka dhigi karaa matalan kalsoonida maaha in adiga naftaada keliya ay kow ka tahay laakiin waa inaad ku kalsoonaan kartaa qofka walaalkaaya markaad leedahay qofka walaalkaaya inaad ku kalsoonaan karto waa inaad adigu aadan khiyaamayn waa inaadan adigu yani si ka duwan yani si isaga lid ku ah kalsoonida hayo aadan adigu u samayn yani marka qodobka kale marka waxay tahay qofkan inuu yahay bulsho ahaan qof khiyaamo ka samaysan khiyaamada oo kale qodobada kale marka waxaa ka mid a qofkan hamiga ku jira waxa uu leeyahay yani qof hamigiisa wuxuu yahay inuu xoolo helo siduu doonaha ku helo qofna hamigiisa wuxuu yahay in wax la yaqaan uu qabto wax la yaqaanna sameeyo meel la yaqaanna tago yani marka waxyaabahaas oo dhan waxay aasaaska ku hayaan qofka guriga uu ku soo koray iyo su-aashan ah yaad guursan lahayd aad iyo aad waa mahadsan tahay Maxamed Xasan dabcan su-aasha yaad guursan lahayd markii jawaabaha waxaa ka mid ah buugga ku jira oo hadda uu idin qishay qof aad ku kalsoon tahay aad taqaanid guriga uu ku soo barbaaray iyo dhaqanka wax sida looga dhaqmo gurigaas waa tahay Cabdullaahi Sheekh Xasan
buuggaaga qaybo badan dabcan oo ku qornaa carabiga qaybteeda waxaa ka mid ahay waxaad ka sheegtay tarbiyada canuga iyo qoyska sida ay saamaynta isugu leeyihiin adigoo igaga sheekeeyey markii ay iga sheekeynaysay yarkii kuugu yimid iskoolka adigoo yaqaano waalidiintiisa oo diinta ku fiican haddana inuusan isagu waxba ka aqoon diinta shukran inta allah barik fiik runtii iska warqabka ubadka yar ee soo koriya iyo waalidka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah kaa yarkii hadda aan ka sheekeynaya markii u horreysay su-aasha aan weydiiyey uu yidhi hal saxaabi aan ma aqaan waqtiga daqiiqadu walaal noo qabanaya aad u yar oon wax badan lagu soo koobi karin iyo nawada haysta annagoo dhan waqtigaan aad noogu koobane ayaa waxyaabii aan weydiiyey waxaa ka mid ahaa sokorka ama footballka timamka ciyaar ama ka taqaan siro all Europe teamska joogo oo dhan waa aqaan subxaan allah ma runta mid kale waxaan ku yidhi wax yar ka dhagayso kuwa ka mid a 11 tiim buu noo tiriyey magacyadoodii ardayda dhan waxay ku hayaan yes buu magacyadooda sheegaan bal ardayga xifidsan wax ku dhow 500 oo isku dinaysan ahayn isku dhaqan aysan ahayn maskaxdiisa meesha in la baylihiyey baa dareemaysaa haddii lagu guri lahaa kitaabka hadda markaan saan idinku idiin tusayey asaasiyaat fi tarbiyat alislaamiya waa 8 books in 1 book macnaha waa 8 furuuc weeyaan fi kutayb waaxid 8 fanni oo diinta islaamka ah ayaan isugu keenay caqiidadii siiradii fiqigii xadiidkii adciyadii adkaartii nabawiga oon siir usoo koobayay as'ilada iyo jawaabna u badinayay si ardaygu u fahmo waalidka guriga joogo hooyadana al-ummu madrasa say horeyba culimada u dhahaan hooyadu waa iskuulka ubadka inay si fudud ardaygeedii ugu gudbiso maantay UK US macallimiinta ku noolba aad u fahmaya kitaabka una garanaya muqdishona runtii macallimiinta aad baa looga dhigaa qaybtiisa carabiga waxaad garanaysaa ilaahay iqbaalku iska siiyey 150 kun baa hadda koobigiisa marinaynaa oo nusqo intuu hadda jiro ilaahay kitaabo kalena waa kasii dhaliyey hooyooyinka inta noo soo tahniyeynaysa ilaahay anoo aqbala dadaalka yar la nimid ma malayn kartid waxyaabaha ugu muhiimsan oo furo oon ooga dhigaynay ilaahayna ooga dhigay wuxuu ahaa isku xirka ardayga iyo waalidkii aabihi hooyaba marka waxyaabahan dardaarmaya waxaa ka mid ah hooyihii aabuhu ubadka ma aha tarbiyadu macnaheedu ma aha dardaaranka u imaanina tafadal waa tahay waa mahadsan tahay mar rabo inaad inka boobo axmed cabdi waxyaabihii aad kaga hadashay buggaaga sidoo kale waxaa ka mid ahaa magacyada qaadka iyo walxaha uu qaadku ka samaysan yahay marka wax yar nala wadaag bal arrintaas ku saabsan oo si dadku ay wax un uga ogaadaan waxa buggaaga ku dhex jira bismi illaahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay axmed qaadka markaynu ka hadlayno horta in yar waxaan ku noqon lahaa haddii aan markale qaadka soomaalida bale maqlaya taariikhda qaadkii siduu soomaalida kusoo galay baa axmed soomaalida qaadka markii u horreysay uu soo galay waxay ahayd siday taariikhuhu sheegayaan horraantii qarnigii 20aad aynu ka soo gudubnay waqtigaasi marka taariikhda dib loo raaco waxaa la yidhaahdaa 2 meelood buu qaadku soomaalida ka soo galay oo ah labada wadan ee iminka markaa dunyada la eegana qaadka ugu badan uu ka baxo waa dalka Ethiopia oo Soomaalidii reer waqooyiga ahayd markaasi ay u aqoon doonan jireen halkaasi diintu ku soo horeysay marka halkaasi loo aqoon doonan jiro culimadii diinta halkaasi fadhigooda ahaa ayaa markaasi loo aqoon doonan jiray dadkii reer waqooyiga ahaa ee halkaasi markaa u aqoon doontay waxay soo wada noqdeen iyagoo wada mirqaansan oo qaadkii ku soo bartay herar kadib markii la isku soo noqday wadankii ay ku soo noqdeen si ay markaas dadkii kale ay diintii u gaarsiiyaan ayaa qaadkii waxay ka dhigan jireen aalad markaasi ay diinta ku fidiyaan oo iyagoo uga faa'iideysanaya mirqaankeeda iyo firfircoonida uu jirka gelinaya soo jeedka faraha badan dadkii markaasi ay waxbarayeen bay markaasi uga faa'iideysan jireen qaadka markaasi cunidiisa saasuu markaasi ku soo galay waxaa kaloo la yidhahdaa waxa uu ka soo galay Yaman oo Soomaalidii waqtigaasi noolayd ay markaasi iyadana ahayd meeshii ay Soomaalida markii waqtigaasi markaasi u tahriibi jireen ama markaasi ay u shaqo doonan jireen halkaasina qaad badan baa markaasi ka baxo waa wadamada adduunka ugu markaasi qaadka ugu badan yahay qaadka adduunka ugu badan uu ka baxo labada meelood baa markaasi la yiraahdaa waa uu ka soo galay taariikhdu sheegaysa inuu qaadku markii horeysay ku soo horeeyay waqooyiga Soomaaliya ama meesha imika Somaliland kadib uu saasi markaasi Soomaalidii kale ugu baahay oo waqtigaasi ilaa imika uu markaasi qaadku ugu socdo inta badan Soomaalida wuxuu uga yimaadaa kuwa reer Somaliland ama reer waqooyiga Ethiopia halka uu Soomaalida xaan kale ee koonfurtana uga yimaado Kenya
muddadaasi laga bilaabay ilaa imika sidaas ayuu qaad ku socday isagoo soo kor waxaa kale oo buug waxyaaba uu sheegay ka mida oo aada muhiima in markaasi la dhugto ay tahay sideeda bannaanba marka taariikhda la dhuganayo waxaa loo dhugto ama markaasi loo dhagaystaa ama loo akhristaa si uu fashilkii hore dhacay markaasi aan mar labaad u dhicin oo cashar looga barto waxaa buugga markaasi aan ku xusay waxaa jira isku daya qaadka lagu sameeyey oo dowladihii kala duwanaa soomaalida soo maray gumaystihii iyo dowladdii siyaad barrabo markaasi marar ay isku dayday baa jiray mararkaasi ay isku dayday maxaa isku daygii fashiliyey maxaa la samaynaya iminka haddii markaasi la isku dayo in la joojiyo la samayn karaa taariikha noocaasi ah ayuu axmed markaasi buugga soomaalida iyo qaadkii ka sheegaya waa usoo laaban doonaa midda ku saabsan walxaa uu ka samaysan yahay qaadku maxamed xasan markaa buuggaaga contentskiisa fiirinayay waxaan ku qoslay noocyada guurka meel ay ku qornayd oo noocyo tiro badan oo aanan maqalin hadda ka hor ayaa ku jiray marka qaar ka mida nala wadaag caynab horta waa mahadsan tahay mar kale noocyada marka laga sheekaynayo noocyada guurku ma aha guurar kala duwan laakiin waa wadiiqooyin loo maro kuwa kale waa tiro badnaadeen laakiin guurka ugu wanaagsan ee la yidhaahdo guurkaasi milgihii ama quruxdii guur lahaabuu maray waa midka ah ay yidhahdaan geed fadhiisiga ee aynu inta badan isticmaalno marka guurkaasi waxaa weeye wiilkay gabadhii markay sheekaystaan oo ay talag ka go-do waxay go-aan ku gaadhayaan waalidkood inay ogeysiiyaan gabadhuna waalidkeed bay u sheegaysaa wiilkuna waalidkii kadibna wiilkii oo wata waalidkiis iyo wixii kale ee xigto u ahaa ama axsaab ayuu tegayaa gurigii gabadha sidaasaana loogu soo galo fadhiisanayaa guriga gabadhaa lagu sameeyaa gogosha iyo sooryada iyo intaba reerkiina gabadha saasaa lagu weydiistaa waana guurka ugu qiimaha badan ee aynu naqaano marka waa wadooyinka loo marayo xoogaa waad celcelinaysaayo markaan yara badlado ayaa xoogaa xakamay gelinaysaa bal waan isku dayayaa inaan wax yar koobkoobo buggan waxyaabaha muhiimka ee kale buggan ku jira waxaa ka mid a horta waxaan xooga ku saaray habdhaqanka bulshada soomaaliga ee asalka ah waana taawata u baahan in laga duulo yacni inaan reer galbeedka oo kale qoyskoodu say u dhaqmaan ama kenya ama etoobiya ama yeman aan qoyskii soomaalida u sheego ama wiilkii soomaalida u sheego aad baan uga fogaaday waayo waxaan ogahay inaynu kala nolol nahay inaynan isgeli karin marka waxaa ah qaybta muhiimka ee buuggan ku jirta waxaa jira 12 nooc oo haweenku ragga u kala qaybiyeen waxaa jira 12 nooc oo raggu haweenka u kala qaybiyeen yacni mid walba astaantiisa magaca marka haween ma aha heblaaye ah laakiin waa dhaqan qofkaasi leeyahay bay magac ugu bixiyeen marka taasna xogaa waa wax qofka dareenkiisa xanxantaynaya marka uu qofku sheekadii akhriyo ayuu fahmayaa rasmiyan markuu wiilku akhriyo qodobkaas ayuu ogaanayaa inuu 10 ka mid yahay ama inuu ka mid yahay ama inuu ka mid yahay aad iyo aad oo maasan tahay oo maas shukran sheekh cabdullaahi mar kale aan kugu soo laabto waxaan rabaa buuggaaga maali waxyaaba aan ku arko waxaa ka mid ahaa calaamaat ulmunaafaq adoo qayb carabi ku qorneed oo ka aqriyay marka maxaad sidee u qortay qaybtaas sidaynu wada ogsoonnahay ama culamada inoogu qaybsan dabcan kitaab markaad qorayso dana islaamiga rabto inaad ku barbaariso ubad yaroo soo koraya iyo inta waaweyne u baahanba runtii qof uu anfaco anaa ugu horreeyey ilaa haddana mar walba waa ku noqdaayo marba wax baan ka fiirsadaa ilaahay anugu anfaco kulligeen markaan ka hadlay caqiidada iyo ma calaamaat almunaafiq su-aashaasaan ku keenay ardayga maxay tahay calaamadaha munaafiq lagu gorto xadiista nabiga sala allahu alayh wasalam baana bartamada ogsoonnahay aayaat almunaafiq 3 rasuulku sal ly slam uu yidhi calaamadaha munaafiqa lagu gorto waa 3 idaa xadata kadab markastuu uu sheekaynayo been buu ku sheekeeyaa وإذا وعد أخلف مركزتو بلن قاضو بلنتي ما وفيو وإذا تمن خان مركي لا آمنو لو ديبتنا واو خيانة مركا متبا برارجل لكن وباهن دينتا إنه ما مر والبا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرح العانا سيق هذا إنه ونكرون كحاجة إنه نصوص القرآن كي سنة
munaafiqaas laga hadlayo labay culimmadu u qaybiyaan way ku xusan tahay kitaabkana insha allah oo ah nifaaq caqadi ah iyo nifaaq camali mid munaafiqii wada aqoonay Abdullah ibn Salul oo kala ah oo uurka gaal ah qofka wuxuu sheeganay istisqaan dhan waxaan dhan show uu noo dhigaya salaad buu tukanaya quraan buu akhrinaya waxba aysan ka jirin ma warrabaysna waa gaal rasmi ah kaas waa caqadi iyo nifaaq camali baa jira qofkii waxyaabo kamid wixii nifaaq lagu yaqaanay uu sameeynaya marar qifu been sheegaya marar waxba ka dhacay dunuuba taasoo kale waa dambi qofkina lagu ma gaalaysiin karo oo laba dhahayo kan waa munaafiqo diin xarada buu ka baxay barakallahu fiik aad baa umahadsan tahay meeshaas waxaan usoo qaatay dabcan waxaa ka hadlaysa buga wuxuu ka hadlay inta badan waa tarbiyada ubadka oo islaamiga ah marka dadka Soomaalida inta badan ballantay aad ugu liitaan marka calaamadaha munaafiqana waxaa kamid ah in qofka ballantu markuusan ballan lahayn ay munaafiqnimada kamid tahay marka saas darteed ku weydiiyay taas usoo qaatay waxaan rabaa in Maxamed Axmed Cabdi aan u tago isaga oo wax ka sii weydiiyo walxaha qaadka hadda marka inoo sheekay صح maasan tahay buugu saan hore sheegnay wuxuu yeelaa qaabab istabay loo qofka qaadka wax badan ka baraya buugu halkaas ugu tagi doontaan waxaan idinku codsan inaad sii wada eegtaan waa buugu aad u kooban laakiin aan ugu talagalay qaadkii inuu wax badan dadkii ka baro markuu ka yimaado qaadku waa maxay oo ka yimaado taariikhdii qaadka haddana buugu wuxuu isweydiinayaa walxa maxay buu qaadkii ka kooban yahay walxii kala duwanaayo qaadka koobnaa buu buugu dadka u sharaxaya markaas ama akhristiisa baraya culimadii waagii hore ka shaqeynaysay walxaha ay geedu ka kooban yihiin ama saynisyaanadii ugu horreeyay Afrika soo maray gaar ahaan soo maray dhulka ay Soomaalidu degto waxyaabihii cusbay ay ku arkayeen ama dhartii cusbeed ay ku arkayeen waxa ka mid noqday qaadka oo dadkii cunayaan saameynta noocan leh marka waxa la isbaaray geedkan cusub ee markaasi aynu ku arkaynaa halkan muxuu yahay saynis ahaan muxuu noqonayaa qaybteebu raacaya muxuu ka kooban yahay marka qaadkii waa la qaaday si walxiisa loo ogaado oo maadaama ay geeska Afrika iyo bariga Afrika Soomaalidu degta aanay jirin laaba markaasi si fiican wax u baaraan waxa la geynayo Francisco markaasi aad markaasi ugu hawlanaa inuu dhirta cusub wax ka ogaado ama chemicalska dhirta ay ka kooban wax ka ogaado ayaa ugu horeeyay cidii horeysay markaasi qaadka baadhay qaadka maadooyinka kooban ee hore looma helin laba maado ay qaadka kooban laakiin labada maado hore looma helin dib baa laga helay labadaasi maado waxay kala yihiin maadooyin fara badan ka kooban yahay buuga ugu tagi doontaa mid kasta iyo saameynta ay leedahay laakiin laba ugu kooban oo laba ugu muhiimsan oo ah labada dartii loo cuno ee mirqaanka sababa labadaasina way sii kala khatarsan yihiin labada magacooda waxa la kala catin iyo catinon catin markii hore ayaa la ogaaday oo iyadu way u adkeysan kartaa cadceedda iyo oxygen-ta ay qaadanayso oo hore iskuma bedesho saa darteed markii laababkii la geeyay Ingiriis ama markaas laababkii galbeedka mar walba ay soo baxaysay catinto mar dambe ayaa la ogaaday oo sanadku waa markaas 1978 baa la ogaaday maado kale oo tii hore markaas ka waalicas oo markaas ka firfircooni og oo markaas qofku markaas ay tahay tan dartii uu cunayo maadadaasina waxa loo bixiyay catinon waa taawgeed markaas qaadka loo cuno waxay ku badan tahay caleemaha yaryar ee curubta ee la goosgoosto halka maadada kale catinontu ay ku badan tahay kuwa la daadiyo ee markaas garaabada loo yaqaano maadadaasi catinon waxyaabaha ay sababto ayuu buugu sharaxayaa in badan qofka ku sababto jirkiisa oo kacaya dhiigiisa oo markaas xawli ugu shaqeynaya badanayo indhaha oo weynaanaya qofku ay firfircooni galayso qofkii oo markaas sheekooyin khiyaal isku sheekeynaya markaas chemicalska qaadka markaynu ku hadlayno labadaas maado ayaa ugu markaas muhiimsan laakiin buuga waxaad ugu tagi doontaan maadooyin iyaguna kale oo caafimaadkiisa u saameynaya oo jirkiisa u saameynaya mid kasta iyo xadiga markaas marka la cuno mirqaanka la gaaro mid kasta iyo jirka sida uu falgasho mid kasta ay markaas sida caloosha ay u tagayso uga sii baxayso saas oo dhan buugu sharaxaya buugaad ugu tagi doontaan shukran waa maasantahay buuga ugu tagi doonaan intaas ku sheegi rabay Maxamed Xasan buuga horta jabtariisa dhamaantood wada xiis badan yihiin laakiin waxaan kala rabay qayb ku saabsan hadda mid aan ka sheegaysay oo dhahaysay xikmadda ragga ee guurka marka haye meeshaas waxay tahay markaan buugga qorayay in badan waxaan soo qaatay isbarbardhig yacni gabdhuhu ama haweenku ragga waxbay ka aaminsan yihiin ragguna gabdhaha waxbay ka aaminsan yihiin marka horta mawduucaasi wuxuu aad u lafagurayaa labada dhinac waxay kala aaminsan yihiin
anoo maansooyin badan oo qodobba dhinac ay ka tiri kusoo ururiyey. xigmadduse waxay kusoo ururaysaa, waxaa jira laba sheeko oo midna ragga ku saabsan tahay midna dumarka oo caan ahoo soomaaliduna aada u wada taqaan. yani haddaan ku sheego waxay ahayd baa la yidhi nin baa reer lahaa, marka ninku iska reer magaal buu ahaa, gabadhii buu nabar ku dhuftay markay isku cusbaayeen, waxoogaa intay yara afdhaafeen waa iska aamusayoo sanada markii kusoo wareegay ayuu wuxuu yidhi odaygii dariskeenna ahaa ee tukubi jiray beryahan ma arage xagguu aaday, marse tiri sanadkaadii dhirbaaxday diraacdii ka dambeeyey buu dhinta. waa iska aamusayoo wuxuu yidhi maal dhawey hog baa halkan laga qoday maxaa ku dhacay, berigaadii dhirbaaxday 3 sano kadib baa la qoday bay tiri. maalintii dambea reera islaayeen dariskaa, markaasaa la isugu yeedhay ee la yidhi bal waxaad idinkuna ka ogeydeen. islaantiina waa loo yeedhay, odaygiina waa loo yeedhay. islaantiina marka waxaa lagu yidhi bal waxaad dagaalka reerahan ka ogey wax ka sheeg. odaygii markay isagoo isla dhirbaaxadiiba kusoo halqabsanaysaa ayuu yidhi walaalle berigii aanku dhirbaaxay bal wixii ka dambeeyey waxaad ogeyd sheeg. yacni taasi waa mid. marka sheeko gabdhahaabaa marka jirto iyaduna ay ragga ka dhahaan, waxay yidhaahdeen oday 60 iyo dhowr jir ama 70 jir waxaan doona aan dhahan, laakiin nin odaya ayaa gabadh yar guursaday. marse maalin walba waxay ku tiraahdaa odaygaagana indhaha la xoogaa, gabdhuhuna markay odayada guursadaan xoogaa niyadoodu inaysan deganayn oo dhallinyaradiiyabaa iska xifaalayso oo yidhahda maxaa odaygaya ku fashay ma ogtaa. markaasay maalin walba ku tiraada waad indhala'da, waa indhala'da iyo waxaan. maalin dambe wuxuu sameeyey subaxii ayuu irbad qaatay baa la yidhi, geed guriga hortiisa abuu sudha. marka maqribkii la gaadhay ayuu yidhi irbadda ayaa meesha sudhay, irbadda halkaa sudhayn maxay tahay buu yidhi. marse tir anigu uma jeeda irbaddu maxay tahay, wasmaasawta halkaa sudhan maadaan arkayn irbadda kulaha, bal adigu soo qabo. odaygii intuu israa irbaddi soo qabo awr meesha fadhiya ku turunturooda. marka gabadhii way qososho, marka waxay tiri irbadna waad u jeedaa awrna uma jeedid. yani taas marka marka caqli ahaan marka buugga nuxurka ku yaalla wuxuu yahay yani labada fikradooda la kala aaminsan yahay, yani wax dhadhamaya oo labada dhanba. yani gabdhuhu badanaaba waxbay soo celceliyaan intay guriga joogaan wixii maalin ku dhacay. odayga maalin hadday ku tiri dhakhtarigee oo uu ka dhiga adeygay 10 sanan ka aaday, yani way u haysaa. yani ragguna waxyaabaha ninnimadiisa ah in gorgortan lagala galo adiyo goor aad buu uga soo horjeeda. yani marka meelahan ka hadlaya kolay waa meelo saa usii dhadhamaya oo hoose aad iyo aad meelo aad u qoto dheer aad iyo buuggaas waxaa hubaa qofkiina akhriyaa uu asiga qoslay uu ka dhamaanaya sheekooyin aad u xiiso badan ku qoran. sheekh cabdullaahi aan u imaado markan. sheekh cabdullaahi buuggaagu wuxuu ku qoran yahay hadda midka arkay luqadaha carabiga iyo englishka, luuqado kale inuu ku qoran yahana waa lagu qori doonanood ii sheegtay. marka maxaa ku dooratay in luuqadahaas badan lagu baahiyo? bismillah, runtii inta hore waa mahadsan tahay. anigu ma aan dooran in luuqado badan lagu turjumo, laakiin rabbi subxaanahu watacaala markii uu waafajiyey kitaabkan yar inaan kutubadii culummada waaweyn ka soo aruursho usoo kooba ardadii, yuu ilaahay dadkiis ka jeclaysiiyey kitaabka. akhyaar baa ii timid jaaliyaad kale ah, waxay dhaheen niyo ingilishna kitaabka nagu turjuntaan xiisaynayna. carabi maadaama uu yahay waddan english language lagu hadla aan joogno, fikraddii khayr allaha siiyo walaalkii maxamed shiil oo zaylac bookstore nin gacanta ku haya hadda oo muqdisho idinla jooga oo markaas aan isku magaalo ahayn, yaa hawshii ku wareejiyey inuu tarjumadii sameeyo oo cid ku habboon kambani ku habboon uu ku wareejiyo. saasaan ingilishka horta ugu turjumnay. kadib waxaa liga dalbaday in faransiis lagu turjumo, kadib waxaa liga dalbaday in luuqadaha skandinaviyaanka isku dhow lagu turjumo, jarmalka sidoo kale. soomaaligeena xataa nin akhyaara oo ragga luuqadan soomaaligeena sugaanta hadda aan lahayn waa sugaanteeni waa jecelnahay luuqadeennii, yaa iga soo dalbaday anigii Soomaali ah. waan ku wareejiyey, waan ku faraxsanahay ku turjumo haddii waxaan islahaa dadkeeni madaaris carabi ay dhigtaan oo uma baahne. marka walaalle saasay ku timid in luuqado badan lagu turjumo. kulley taasina kulley wayna farxad gelinaysaa inta wax qorta oo aan ka midka ahay, oo in badan laga yaabo markuu qofkii asagii wax qoro, asagii daabaco, asagii nashrinayo in uu culays badan la kulmo. qoraayaha dadkiina maanta wax u qorayo qurbada aan dhihin waddankeena maantay qurbada anagana dhibtay. waxaan codsanaynaa weliba markaan idinla joogno qurba joogin aad nala oran. halkaasna waxay iga tahay dardaaran, macnaha waddanka aniga baan dareemaynaa aad baan habbi ugu nahay.
marka qorayaashu waxaan leeyahay ha la adkaysto waa laga baxayaa biidn illaah waan ogahay qalinka markaan qaadano dhibka uu leeyahay oo kaliya wax walba laga sugayo waa sababtii uu kaliftay in aniga qoro aniga daabaco aniga bookstore u furo iqra bookstore.com hadaa fiirsan waa maktabadannada iqra bookstore.com qoraan kastana waxaan dareemayaa walaalada maanta hadii garab fadhiya iyo walaalada kale maanta la soo fariisanay rag iyo dumarba walow gabdho hadda naga sii badiyeen ma sha Allah maanta waxaan yar eegayay maalin dhaweedan soo maray 3 bari ka hor mishan baa ayaan joogay Cairo aan soo maray daransiid aan ku ahaa yaan bookstore-da fiiriyay waxay soo jiitay marka gabdho madrasa isugu tagay oo masaariya oo hal kitaab wada qoray madaarista ka qoray iyo horumarkooda kitaabka horeeyay iibsadu noqday gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa saa hore u socoteen saa inoo qalinka aad u qaadateen saa inoo sii socdo haddii hooyo noo badbaadana annaguna waan badbaadaynaa waa xaqiiqo barakallahu fiik aad iyo waa maasantahay adinkuna sida aad noo dhegaysanaysaa quruxda badan oo ku mahadsantihiin barnaamijkanagu wuxuu soo gaaray qaybihii dambe qaybaha dambe buugaagtan oo dhan waxaa ku jira qaybo madadaalo ah oo aad u qurux badan oo xiiso badan qof walba xiiso gelinaya marka waxaan rabaa inaan ku hormaro axmed cabdi axmed buugaaga waxaa ku qoran qayb aad ugu talo ciwaan aad u bixisay qisooyinka qaadka marka qisooyinkaas qaar ka mid ah nala wadaag oo kuwooda ugu xiisaha badan dabcan dhammaantood ugu xiiso badan yihiin qaar ka mid ah bismi illahi raxmaan raxiim saa walaala sheegay markaynu waxyaabahaasoo dhan ka soo wada hadalnay dhibaatooyinkiisii caafimaad iyo markaasi dhaqaale iyo markaasi bulsheed diintii muxuu ka yahay qaadkuma xaaraanba mise waa xaal waxaas markaynu ka soo waranno waxaynu isla tegaynaa cutubka oo la idhahdo markaasi qisaska mirqaanka ama markaasi sheekooyinka qaadcunka ka dhacay buugga waxaa ku jira ilaa kuma badin laakiin ilaa 15 qiso ilaa 10 meelaha area ayaa ku jira oo dhammaantood ka wada warramaya nin mirqaamay oo intuu qaad cunay si aan markaasi caadi ahayn u dhaqmay ama markaasi si miirbeen u dhaqmay oo maskaxdiisa gudhay macnaa qisooyinka ugu cajabta badan ee markaad eegto aad ogaanaysa inaan qaadka qofka cuna caadi ahayn waxaa ka mid ah nin ka mid a dadkeena qurba joogta ah ayaa maalin maalmaha ka mid uu soo mirqaamaya qaad aad u fara badan buu cunaya hawadu ka baxaya kadib xilli dambe ayuu guriga imanaya qurbuhu way ka yar hawl badan yihiin sheekha maraakiin halkaas way ka yar hawl badan yihiin marka wadanka la joogo oo shaqo badan cid kale oo dadkii caawisa ciyaalkii aan jirin gabadhii oo keligeed guriga ku kadeedan oo ciyaalkii markaasi la dhiban buu u imanayaa oo xilli dambana ay tahay gurigiina uu ku madow yahay markaasay canaanaysaa war miyaanan qaadka kaa waanin miyaanan iska daakoon miyaanan sidanis way u digaysaa xolasa hadda kadib guriga soo geli maysa haddii kale line 9 bay garaacaysaa ma ogtahay markay markaysaa ugu sheegto guriguu ku madow koonas imikana orday noo doon guriga waxaanu ku iftiimeen nal waxaa jir la jaajarka la geliyo ama dabka la geliyo markaas dabka kaybiya kaa imika inoo doon bay koonasa hayigu odhanaya suuquu tegaya suuqii marka tago uu soo iibiyo nalkii ama markaas uu soo iibiyo laydhkii saa u taqaan hadba ayaa gurigii intaan ku soo noqon ayuu sunnayaa intaanad gurigii gaadhin qaadkii ka sii yara gaadhsiiyo waxoogaa qaada sii yara cun majliskii markii hore u fadhiyay ku saabsan inuu yar sii yara fadhiisanaya xoogaa markuu fadhiyo mar dambe sugaanaya in guri madow laga sugay oo gabadh iyo ciyaal iyo markaasi ay markaas sugayeen markaas soo hambaraya uu la soo boodaya iyadoo xilli dambe ay tahay gurigiina gabadhii sii xidhatay oo markaasi dee waa xilli dambe oo la kala seexday ayuu u imanayaayo wuxuu arkayaa bac madow oo dibadda guriga hor taalla bacdan madow waxaa ku jira qashin markaas guriga laga soo xaaray iyo ciyaalka warood iyo iskagii qashinkii guriga oo dhan ayaa la sugaya halkan baan hordhiga waxaa la sugayaa inuu qaado gaadhigii qashinka qaaday aan maskaxdiisu baa isku geegeysanayso sunnay wallaahi sawtaa dharkaagiiba dibadda gabadha kuu soo dhigtay maaha iska takule bacdiibu la boodaya halkan buu iska saarnayaa buu iska tegayaa gurigii hooyadii iyo gurigoodii buu iska tegayaayo kabarka dhar ku jiraan buu furaya markaas bacda dhex dhiganaya qashinkii wixiiba ku jiraan iyo xafaayadii ciyaalkii oskagii gurigiyo wixii oo dhani ayuu guriga dhex dhiganaya maalmo marka gurigii joogaayo hooyadii kuunasa war bacdan qashinkaa maada guriga soo dhex dhigay markaasuu yaabaya bacdii ma dharkayga waabu furaya mise waa qashinkiiba markaasuu ogaanaya gabadhiisu inaanay soo ariine waxaanuu soo qaatay ahayd markaasi bacdii qashinka markaasuu miirsanaya markaa qisooyinka buugga ku jira waa qisooyin mid waliba markaasi markaad akhrisaad quslayso laakiin ay tahay inaynaan quslayno ka naxno qofka noocana ee bulshada taru samayn lahaayee intuu miirkiisaas markaasi u dooriyay waalida ku sugan inay dhammaanteen intayna qaadka cun u naxno ay tahay oo markaasi aynu ka soo saarno waalidaasi uu ku jiro qisooyinku wada tusinaya ayuu buugga markaas soo bandhigaya aad iyo aad waa mahadsan tahay qisada ani waxaan aad uga helay dubaabka qisada qaybtaas ka hadlaysa aad uga helay marka
qaadku u dhib badan yahay dabcan buuggan wuxuu ka hadlayaa musiibooyinka iyo dhibaatooyinka qaadku u keeno iyo cudurrada uu leeyahay oo cudurro isugu jira kuwo mental iyo physical intaba isugu jira marka qaybtaas qisooyinkaas yarkaa marka haddaa akhriso waa qaybta ugu dambaysa buugga maantana waa ku qoslaysaa meena waxyaabo la yaabaa ku arkaysaa waxaan rabaa maxamed xasan ruuxiisa buugga uu qoray isaga ruuxiisa sheekooyin wada faniya aad u qosol badan ku qoran waxaan rabaa tiknolojiyadda iyo lamaanaha qayb aad ugu magac dartay ay ku jirta buuggaaga maxaad ku qorta halkaas horta sheekooyinka qosolka leh ee nolosha waa wax bulshada intaa ka dhex dhaco aada u la yaab badan intaanan su-aashaada jawaabta u gelin ilaahay ha u naxariistee arrimaha guurka wax yar ka fiirinaya dhowdaan baa wuxuu yidhi jacbur yar buu lahaa marka kelmadiisa waxaa ka mid ahaa nin shukaansidoona hadal macaankiisa hadba miduu arku yidhaahdaa caashaq baan ahay waxba lama jeclaanina gabadha waa la sirayaa raggaa iyo gabdhaha ayaa u garnaqi doona yacni markuu saas leeyahay wuxuu inagu tusinayaa in meesha wax jiraan laakiin meelo badanoo wax loo qaadi karaa ay jiraan aan jawaabtaadii usoo dego cutubyada buuggan markan ka hadlayay waxaan anigu in badan baadhis ku sameeyey bulshada dhaqankeeda waxa guryaha yaalla yani kamaan so marka bulshada marka dhex galay waxaan la sheekaystay ilaa 150 haween ah oo guryo leh oo intaan qaliya buu qaatay aan waxyaabo weydiiyey ii qoraa 100 nin rag ka badan baan la sheekaystay oo da walba leh da lixdamaad dhaafay da ragga dhexe ah ku jira da markaa xanabaadka iyo naga daysaan marka yani bulshada markaa dhex gasho waxaa kaaga soo baxaya waxyaabo badan oo runtii qurux sheeko noqon kara bulshadana wax u gudbin kara marka arrintan tiknolojiyada iyo lamaanaha waxaan u malaynayaa inagu maanta waxaan joognaa waqti la yidhaahdo waqti casriya qalab badan oo kala duwan baan haysanaa halka telefoon maanta waxaan ka isticmaalaynaa snapchat facebook twitter instagram inta kale aanan sheegi karin ka sii badan qofka marka 6 social media accountnadood leh oo ay shaqo ka rabaan inuu dad kala jaadgareeyo oo qofkaasi hooyo ama aabbo uu yahay inta uu xoog hayaa inteebay la-egta waxaa jiray dhaqanadeennii hore meel la yidhaahdo ciyaar gudka waxaa la dhihi jiray marka dhalinyaradu intay maanta o dhan shaqada xoolaha iyo ama beeraha intay ku soo daalaan ay fiidkii meel isugu yimaadaanoo si gabdhuhuna ugu soo baxaan oo halkaa laysla boodo hadhowna wixii israbaa meesha iska ugaadhsadaan caqli ahaan anigu meelahan waxaan u bixiyey ciyaar casriga ahaa yani goobaha ciyaar gudka inay matalaan waa meel xoogaa waqti isaabay ahayd dad badan oo dan badan lehi ma jiri jirin keliya in waqti laysaga lumiyo oo laysaga haasawato laakiin kaleeyahay marka meelaha aan aadka uga waxaa kow ka ahaa aabbaha shaqo laga rabo iyo hooyada ay u taallo inay 4 aroornimo ama 4 aroornimo intay kacdo aabbuhuna kaco waajibaadkii intay gutaan lagu lahaa ilmihii ay u diyaariyaan hadday waxbarasho aadayaan agabkoodii iyo waxay ku tegi lahaayeen ma u malaynaysaan qof facebook ama snapchat ama wax kale
kowda habeenimo ama labada habeenimo intuu ku seexday inuu shaqadaa qaban karo. yani meelaha dayicu ka yimaado kadibna khilaafka iyo dhibtu ay ka bilaabato inuu qayb ka yahay ayaan dhinac ka tusiyey. saasaan marka in badan ugala hadlay. dhinac fiican uu leeyahay oo technology-gu la-aantiis wax badan maynan gaarneen. inaga waxaa isu keenay technology-ga. dad badan oo aan saaxiiba ku nahay oo aan aad u jeclahay baa jira oo aanan weligay arag. waxa keenay waa social media. maxamed waa mahadsan tahay. qaybihii ugu dambeeyey su-aashii ugu dambeysaan idin weydiin doonaa. cabdulaahi xasan soo dhawaaw. waxaan rabaa adigoo israacsanaya dardaarankaaga iyo buuggaaga waxa ay dad ku jeclaysan doonaan intaba adoo u sheegaya haddana inaad wax yar iiga sheekayso qaybta aad kaga hadashay sixada iyo firaaqa. بسم الله الحمد لله. hal daqiiqa haystaa. aad baa mahadsan tahay. daqiiqad haddii bilaabatay ma inagu filnayn. 3 daqiiqo hore nagu wada insha Allah. akhyaarta aad baa mahadsan tihiin. runtii gabagabadii maadaama la soo gaaray dhammaan kasoo-galayaasha inta noogu weyn inta noogu yar aad baan idinku mahadcelinayaa bacda shukrillahi subxaana wa tacaala. anoo fursada ka faa'iidaysanaya aad baan runtii ugu faraxsanahay hore idinku sheegay kulankiina. arrinta walaalkii uu sheegay asixa walfiraaq waa wax laba nicmo oo rabbi subxaana wa tacala nagu manaystay weeyaan. rasuulkeenu sala allahu alay wasalam waxa uu yidhi nicmataani maqbuulun fiima katiiru min annaas. laba nicmo waxaa jira dadka lagu kadiyey in badan oo ka mid aysan ogeyn. asixatu walfiraaq caafimaadka ilaahay ku siiyey oo qabto iyo waqtiga aad hayso. labadaas haddaan maalgelinno oon ilaashano oo si wanaagsan uga faa'iidaysano. walaalka hadda miidiyaha ka sheekeynayay sabciro haddaan dhanka wanaagsan waa silaxdu hadday aad ka gasho nood baad ku qoranaysaa waxbaad ku qoranaysaa. waxaa laga yaabaa adoo qayl la-aan ku hayso inaad ku qorto adoo qalin ba qaadan oo asiga aad qalin ka dhigato oo teknolojiyada ka faa'iidaysato. notebook bay ku tahay media ku tahay wax walbaad ku duubanaysaa. ha lagaga faa'iidaysto wax kasta oo soo mara caafimaadka aad qabto berri inaad helin baa laga yaabaa. اغتنم 5 قبل 5 سوق سلعة سوق كرنيسان معناه عفمات إلى أنتو كسيتا حامسن كفا إليسو برا كسر لايسا فلقد ما أنت على هيسو إنت هذا البلو بيزي نقول أولا مشهورين تفقهوا قبل أن تسودوا سوق عمر المختار رضي الله عنه ويري وفرد أنت أو فهم أنت إن أضياء نقول أو حكومين ونحن المستقبل قويلك ما أنت نورفني هذا أنت اختلال قولين ما أنت كفا إليسو وحنقولوا لي كتاب قرآن كي مشارك رب الله سبحانه وتعالى بركيه الله يعني علم عن الإندارة أقوال عن الإندارة دعاء عن الإندارة منكم مكيرين من إلهي عالم كلامكم مجالسين وفضل الله يؤتيه من يشاء المقول الله وثم أنا أقول أحكي لك أرضه مدة 14 سنة صار الجيل مكبلا إلا 19 اللي قربا عن النبي الله إلا هذا المعلم هاي ومع بعد فيها لما كل الإسلامي وفيها هذا كولومبوس أوهايو المعلم كاهي برمهام يوكي مدة المعلم كاها labadaas oo daban in badan ku jiray halkaan ay la joogo macallin mar waa kan oo yar gobolka dawad ku shaqeeyay oo ka soo noqday macallin anigoo yar 16 years ma ku bilaabaan filaya macallinimo taa marka waxay dhaxalsiisay inaan ardadii baadidoodii suugaanta markuu qorayo walaalkeen markuu walaalkeen guur wax ka qorayo markuu walaalkeen jaad wax ka qorayo markuu walaalkeen wax kale wax ka qorayo baahi iyo dib u arkay weeyaan anigana baahida aan arkay la'aadigeed iyo aan sir dawada halkaan ka dhowday ardadii laga faansiyo san loogu fuudayo taasaan isleeyahay ilaahay uu waafajiyay Soomaali kaliya maanta ma ahayn caalam karaab ilaahay شعبنا وما سنتها شعبنا أنا إذا سوفوا بيبوكا بوكا وحكومة إنجليش الصومالي عندها عربي لغات سيمبلوها قف كسته وعقليا وفهم دونا بيزك شرع الإسلام كا أي كقوم تاعي مركا ولغات تسهل وحرمها إن هذا اللي يبصقهم طب فريت بوكا يو كلمة بوكا تبليسي ما شاء الله ما صرت ولا fariinteedu u dambaysa waxaan ka dhigayaa taladaasoo laba dhinac u kala qaadayo mid waa tala ku wajahan buuggaygu mawduucu huseeye qaadka midna waa tala ku wajahan akhristaha iyo qoraaga sidaynu wada ogsoonay horna u sheegay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soomaalida dhagaysay dhibaato ka mida dhibaatooyinkii keentay inay adduunyadu dhaafto dhibaato inaga hayso ummad fara badan oo ka faa'iidaysan lahayn ayuu qaadku yahay saa darteed dhammaantiin intiina halkaasi fadhida ay noqono markaasi fariin qaadaya aynu ku sameeyay inaynu ogtana qaadka dibtiisa dareeno oo aynu qof u dareeno qof kastoo inaga mid qofkeena ugu qoyskiisa qof ka mid ah isticmaala qofkaas ku haya dibtiisa horta aynu wada dareeno kow waxaynu ka barno inta laga qorayno xasan laba markasta xal guud aynu wada doono oo qaadka xal aynu markaas ubadeena kaga qabano waa daroobo adduunyada waa iska qabtaay xal aynu iska qabno dhammaanteen wada doono taasi waa fariinta guud buugaygu sido ee ugu dambaysa ku doonayo way fariinta kale markaas ama talada kale ee aan doonayo inaan la wadaago waxa weeye qoraaga
si markaasi ummaddeena ay u horumarto oo ay markaasi asaageedu gaadho oo markaasi ay noqono ummad taya leh waa inuu dhammaantii horta akhristayaal fiican noqonnaa intaynaan buug qorin intaynaan qoraan noqon intaynaan ummadda wax horkeenin aynu wax badan soo akhrinno qoraalku maaha markaasi intaad meel fadhiisto waxa maskaxdaada ku jira aad soo guuriso laakiin qoraalku waa wax badan oo la qoray oo hore inaad soo koobto oo markaas sidii loo dhigay si ka duwan aad u dhigto markaa qoraan kastoo halkan fadhiyo waxaan kula talinayaa inuu akhristo fiican noqdo oo mahadsantihiin axmed aad baad mahadsan tahay dardaaran fiican haye maxamed xasan hal daqiiqo hal daqiiqo inkastoo igu yar tahay horta buuggaygu qaybta ugu dambaysa waa dardaaran waa hooyo gabadheedii oo ay guri geynayso la hadlaysa qaybaha ku xigaana waa gabadhu iyo wiilku marka ugu horreeya ay cusub yihiinoo guri noqdaan qayb la hadlaysa laakiin dardaarankayga aniga caqliyan aan aaminsanahay inaan idiin sheego ee buugga fariintiisa muhiimkayna ay tahay waxa weeye ummad soomaaliyeed haddaan nahay haddaan guurka iyo milgihiisa iyo karaamadiisa iyo qoyska aan hagaajinno waxaan aaminsanahay in qaranku inoo hagaagayo yacni meesha aasaasku uu aan isleeyahay inay u baahannahay inaan wax ka bedello inay halkaa tahay aaminsanahay meesha markaa aan xoogga saaray waxaan aaminsanahay guri istixgelin iyo jacayl uu ka jiro inay soo saari karaan ubad dadkooda jecel dalkooda jecel raba inay noqdaan dad meeshii ay ku soo ababeen iyo iskuulku wax ku soo bartay hadhow ku celin karo oo diyaar u ah inuu isagoo aan lacag ka rabin isagoo aan magac iyo mansab ka rabin u haysta inay tahay meeshii uu lahaa anna waxaa idinka tegayaa khayr baan rajeeyaa horumar baan rajeeyaa qurux iyo qabow iyo barwaaqaan rajeeyaa elayskiiyo waxbarashiyo dugsi loo dareeriyo qalinkoo la qaatiyo khayr baan rajeeyaa baaraka allahu fiikum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed caynab iyo kooxdiisa waxaan soo gaarnay gebagabadii sidaa idiin sheegayba barnaamijkayga waxaan ku soo xiri doonaa ciyaar dhaqameed waxay nala joogaa koox dhallinyara oo iyagu halkaa noogu soo bandhigi doona ciyaar dhaqameedka beritoole sidii si lamida saaka 9 aroornimo ayuu barnaamijku bilaaban doonaa inkastoo saaga ka aan saacad dib u dhacnay balse insha allah beri 9 la bilaabi doonaa axmed faarax cali daaja doctor cabdiraxmaan baadiyow dad lamida ayaa barnaamij ku qoran insha allah waxaa rajeynaya intii maanta la faa'iiday in kasii badan in laga faa'iidi doono iyagana insha allah beri ayaa noo ballanaa
haatana barnaamijku waxa uu inoogu xirmi doonaa ciyaar dhaqameedka. waxaan soo dhaweynayaa kooxda بسم الله الرحمن الرحيم aad baan idin salaamay dhammaantiin qof kasta mansabka uu halkan ku fadhiya ayaan ku salaamayaa waxaan si gaara u salaamayaa dadka maskaxmaalka ah oo qorayaasha ah ka kooban gabdho iyo wiilalba adinkan waxaan idin leeyahay ilaahay maskaxdiina ha idin barakeeyo aqligiina ha idin barakeeyo waxaan rabaa inaan aan war idinku badin dabcan maanta dhan dadkii halkan fadhiyey waxyaaba murtida iyo ka hadlaya qiimaha ay suugaantu leedahay iyo af soomaaliga iyo qiimaha soomaalinimadu ay leedahay ayay ka hadlayeen anigana marka waxaan rabaa inaan ku darsado aniga kooxda hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee banaadir baan oo ah koox ciyaar dhaqameedyada soo bandhigta marka waxaan rabnaa bal marka kaleeto inaynu ku nasanno qaybtii dhaantada yaan rabaa inaan ku nasanno marka kooxdana halkan waydu arki doontaan waynu iswada baran doonaa dadkii hore aan isu dhaqinin waaba isdhaqinay waa mahadsantiin كوكو هلا رالي هذا حاجة حاجة فرصة ماذا معي رالي هذا ددويني اوكي
كهلي سيد هوغو شروع مرابيل هدون رايدي دارن كاغان كهلي نيوال بابا قفكو هلا كماني كولو ينفتيدو ميكا هدا والبابا قفكو هلا كماني كولو ينفتيدو ميكا هدا مرهرانكا هلوانكو سوهيمية حورا سومالي البادو تاهي هريان مرهرانكا هلوانكو سوهيمية حورا سومالي البادو تاهي هريان صدو كمهريكا كاليهم مويوي الوضاطني وانكو هيب صدو كمهريكا كاليهم مويوي الوضاطني وانكو هيب صدو كمهريكا كاليهم مويوي الوضاطني وانكو هيب صدو كمهريكا كاليهم مويوي الوضاطني كاليهم مويوي الوضاطني بالله قبل كنا بنادر بلد وين يجور لا بلد وين يجوهر بكولي يبوالا بربرية هرقس برعية كسماية بريئية بوهود بريئية بوهود بدن باحد وين لوبيا البرخانة يا برشيد البكب وحبك أنا قلت قوة بشارة إلهي هذا هريم براوة
jalaya law yaa kula guro gadadii dalka hooye galgaduud kulaad alla galgaduud kulaado gaygeennii waanaaye nugaala ku geeyo gaabna ku ciyaara matantii qalbigayga allo matantii qalbigayga yallow yaa kula mudo meelmayaygu ku horiyo mudug yaa kula aado maalinta ku arooso masaalay ku yidhaahda waxyar dulqaad sameeya mid macsalaameyna ayaa noo dhiman kuu soo dhawaada cod macaan dhaantada cusub
dhameeye daliil balahayne codkeedaya cabadho cajaabka ku gubto amaro kala hagaa Jigjiga kala hadaa